tartanka bisha barakaysan ee Ramadaantii Quraanka Kariimka ayaa maanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay Masjidur Rahma oo ku yaala bartamaha magaalada Burco. tartankan oo ay ka qayb qaadanayeen ilaa 18 madarasadood oo ka mid ah madarasadaha lagu barto xifdiga Quraanka Kariimka ayaa waxa hanaanka garsoorka tartankan hagayay qaar ka mid ah culimada waaweyn ee gobolka Togdheer kuwaas oo maanta kaga dhawaaqay Masjidur Rahma kaalmaha ay kala galeen ardaydii ka qayb gashay tartankan Quraanka Kariimka. munaasabadii lagu soo afmeerayay tartankan Quraanka Kariimka ka socday maalmihii ugu dambeeyay gudaha magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer, madaxda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Togdheer, culimada diinta waaweyn ee gobolka Togdheer, arday iyo waalidiin iyo waliba dadweyne kale. waxaana halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyay ilaa 30 arday oo iskugu jira hablo iyo wiilal, kuwaas oo u tartamayay 30 jis, 20 jis, 15 jis iyo waliba 10 jis ee Quraanka Kariimka. waxaana halka abaalmarino lagu guddoonsiiyay 16 wiil oo xufaad aad u daayar ah oo ugu horeeyay Cabdixaafid Axmed Jaamac oo isagu ahaa kaalinta koobaad u galay ardaydii u tartamaysay 30 jis, iyo waliba 16 hablood oo iyaga markii ugu horeysay ka qayb galay tartanka Quraanka Kariimka ee lagu qabto gudaha magaalada Burco. gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi oo isagu xaadir ka ahaa sibadii lagu soo afmeerayay tartankan ayaa waxa uu ku dheeraaday qiimaha ay leedahay barashada tacliinta diiniga ah iyo sida loogu baahan yahay xilligan in door muhiim ah laga qaato dardargelinta barashada Quraanka Kariimka. Sheekh Cali Warsamo oo ka mid ah culimada waaweyn ee gobolka Togdheer ayaa isna ka xog waramay heerka uu xilligan ka marayo Quraanka Kariimka ah gudaha magaalada Burco iyo sida ay daayartu uga qayb qaadato, waxaana uu mahad celiyay waalidiinta inta badan ku dhiirigeliyay ubadkooda inay bartaan Quraanka Kariimka. Sheekh Cabdilaahi Baasho isna ka mid ah culimada gobolka Togdheer ayaa si gaar ah uga waramay marxaladihii kala duwan ee uu soo maray tartankani oo ilaa in ka badan 12 sano laga waday gudaha magaalada Burco. Sheekh Cabdilaahi Baasho waxa uu si gaar ah uga codsaday waalidiinta gobolka Togdheer inay aasaaska waxbarasho ee ubadkooda ay ka dhigaan inta badan barashada Quraanka Kariimka. tartankan Quraanka Kariimka ee lagu qabto sanad kasta gudaha magaalada Burco ayaa waxa maalgeliya Sheekh Cabdalla Muuse oo ah muwaadin reer Soomaaliland ah oo ka soo jeeda gobolka Togdheer, kaasi oo fadhigiisu yahay dalka Sacuudi Arabiya. sidoo kalena degmada Garaadag oo ka mid ah gobolka Sool ayaa iyadana waxa lagu soo gabagabeeyay tartanka Quraanka Kariimka, kaasi oo ay ka qayb qaadanayeen ardayda Quraanka xafiday ee wax ka barata madarasadaha Quraanka ee ku yaala gudaha degmada Garaadag. tartankan Quraanka Kariimka ee lagu soo gabagabeeyay degmada Garaadag ayaa waxa abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyay ilaa 22 arday oo iskugu jira hablo iyo wiilal, waxaana tartankan Quraanka Kariimka ee lagu soo gabagabeeyay gudaha degmada Garaadag soo qaban qaabiyay ama bas gacan mugle ka geystay jaaliyada reer Garaadag. Cabdisattaar Cabdilaahi Cali, shabakada caalamiga ah ee Caynaba News, Burco.